السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخيارتا horta aad iyo aad baan uga xumahay yeah I'm so sorry aad iyo aad uga xumahay waxaan u maleynayaa 2 bilood iyo wax u dhow video dhan ma sameynin horta I'm so sorry aad uga xumahay midda labaad wallahi billahi waan ii wada xiisay aad iyo aad aan ii wada xiisay yaa waxaan u xiisay ilaan sameeyo video u xiisay laakiin iga raali noqda mashquul baan ahaa busy baan ahaa yaa safar iyo arrimo noocaasa isoo galay yaa marka aad iyo aad baa uga xumahay I'm so sorry iga raali noqda insha allahu tacaala waan soo laabtay waxaan rajeynayaa muuqaalada ilay imaan doonaan oo aan wada samayn doonaan rajeynayaa marka ku soo dhawaada somalibusiness.info السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخيارتا ku soo dhawaada mar labaad somalibusiness.info anigoo ah Zakariya Mohammed Shooble ما شاء الله تعالى أخيارتا waxaan rajeynayaa ilaa caafimaad qabtiin oo aad fiican tihiin oo aad nabad qabtiin aan rajeynayaa meeshaad joogtiin dunida meeshaad ka joogtiin iyo waxaan rajeynayaa insha allahu tacaala ilaahay inuu naga badbaadiyey yaa jirada coronavirus oo aad insha allah oo aad nabad qabtiin ayaa rajeynayaa marka maanta muuqaalkayga maanta waxaan rabaa ilaan ka hadlo ganacsiga oo xalaasha ah ganacsiga xalaasha ilaan ka hadlaa rabaa maanta marka insha allahu tacaala waa kaasaa muuqaalkan oo dhammaystiran wada daawada horta waad garanaysiin dunida dhan khaasatan dadka Soomaalida yaa waxay aadaan Shiinaha ayay aadaan China ayay aadaan meesha waxay u aadaan ganacsi ay u aadaan meesha aadaan alaabay ka soo iibsadaan alaab nooc kasto China ayay ka keenaan ha noqdo dhar ha noqdo macnaa boorsada dumarka xirta kabaha suumanka sariiraha kuraasida alaabta cuntada maacuunta yaa iyo wax kasto adiga alaabta badana waxaa laga keenaa Shiinaha laga keenaa mid kale waxa waa wadankan Shiina waxa waa macnaa waxay ku dheereeyaan ganacsi ku dheereeyaan alaabta oo macnaa bidaacada oo la sameeyo yaa manufacturing ay ku dheereeyaan businesska way ku dheereeyaan Shiinaha noloshooda badana waxay ku nool yihiin macnaa alaab sameys ayay ku nool yihiin iyo macnaa alaabtoodii oo dibadda wadamaha adduunka dhan ilay geeyaan oo gaarsiiyaan si dadka u isticmaalaan ay ku nool yihiin wax kasta way sameeyaan Shiinaha gaari ha noqdo camera ha noqdo maxaa la dhahaa electronics computer maxaa la dhahaa mobilada wax kasta way sameeyaan Shiinaha wax kasta way sameeyaan marka shirkadahan oo dhan oo alaabta sameeyso waxa waaye waxay bixiyaan canshuur taxes ayay bixiyaan marka iyo canshuurta markay bixinayaan waxay caawinooyin yaa dawladda Shiinaha ayay caawinooyin ayay lacag siinayaan macnaa waa sharci u degan meeshaas wadanka Shiinaha qof kasta oo shaqeeyo ama shirkad kasta company kasta inuu macnaa inuu dawladda lacag siiyo waa sharci waa sida Mareykanka oo kale okay marka shirkadahan oo dhan oo alaabta ka soo iibsano yaa dawladda Shiinaha ayay lacag siisaa dawladda Shiinaha ayay lacag siisaa yaa midaal ahaan cabdi Shiinu aaday bideeco badan ayuu soo iibsaday dhar badan iyo kabo badan ayuu macnaa oo Soomaali keenay ama Kenya keenay ama wadankuu joog Mareykan ha noqdo Yurub ha noqdo alaab badan oo ka keenay Shiinaha lacag ayuu bixiyay halahaasoo kumanaan oo dollar ayuu bixiyay alaabta waa loo soo diray
markii lacagtaasuu bixiyey kambaniga shirkaduu siiyey yaa mithaal ahaan hadduu bixiyey ka dhig $5,000 alaabta dhan $5,000 hadduu ka bixiyey shantaasoo $1,000 waxaa laga yaabaa yaa $300 ama $400 in la siiyo dowladda shiinaha ayaa qaadanayo $300 ama $400 wax u dhow. Okay, marka cabdi kaligiisa ma ahan, waxaa jiro xasan, cali, moxamed, axmed, khaalid, yaa dadkii way badan yihiin. xaliimaa joogto, shiina aada alaabaa ka soo iibsataa, khadraa joogto, faadimaa joogto, caaishaa joogto, khadiijaa joogto, ayaanaa joogto. kulligood waxay aadaan shiina aada alaabay ka soo iibsadaan. marka 400 haddaa isku dardartid halahaasoo boqolaal qofood iyo halahaasoo kumanaan qofood oo shiinaha aado alaab ka soo iibsado, lacagta way badanaysaa. waxay noqonaysaa kumanaan $, iyo ka badan. iyo waxaa laga yaabaa dadka hadday badan yihiin lacagta waxay gaarayaan halahaas oo malaayiin oo $, ayay gaarayaan oo qaadanayo dowladda shiinaha. marka dowladda shiinaha lacagtan maxay ku samaysaa? lacagtan arrimo badan ay ku samaysaa. waddankay ku dhistaan, yaa micnaa ciidamahay ku dhistaan, macnaha hubka iyo waxaas, diyaaradaha iyo waxaasay ku dhistaan. iyo lacagtan oo aad bixisay qaar yaa muslimiinta oo shiinaha oo la dhaho Uyghurs, muslimiinta oo shiinaha oo la dhaho Uyghurs, lacagtan oo adiga bixisay ayaa lagu cadaabaa. muslimiintan waxa waaye seexun ayaa loo galaa, muslimiintan seexun ayaa loo galaa. dowladda shiinaha seexun ay u gashaa, muslimiinta way cadaabtaa. yaa raggoodii halahaas oo micnaa milyan iyo ka badan oo rag oo dadkan ka mid ah Uyghurska ayaa la xiray, micno la'aana loo xiray, sabab la'aana loo xiray. diinta islaamka ayay baabi'isaa. dadka micnaa looma ogolo masaajidaha inay aadaan oo masaajidaha ku dugtaan, lama ogolo. yaa magaca muslimiinta inay la baxsadaan ma la ogolo, sida moxamed iyo axmed iyo mustafa iyo yaa cabdullaahi iyo cabduraxmaan iyo faatima iyo caaisha iyo khadiija iyo yaa magaca muslimiinta ama magaca asxaabta inay baxsadaan looma ogolo. qur-aanka inay akhriyaan looma ogolo. dumarka inay xijaab xirtaan looma ogolo. xijaabka laga qaadaa, madaxa laga feedaa, isqaabiyaa la dhahaa. waxaa lagu khasbaa inay cunaan doonfaarta, yaa hilibka xaaraanka ah oo doonfaarta lagu khasbaa inay cunaan. waxaa lagu khasbaa khamriga ilaa cawaana lagu khasbaa. yaa ku khasabto dowladda shiinaha ku khasabto. waxaa lagu khasbaa ragga garka ilay iska xiiraan, ragga oo rabaan ilaa diintoodii oo sunnada raacaan oo garka deesta, waxaa lagu khasbaa garka ilay xiiraana lagu khasbaa. yaa marka diintoodii ma ku dhaqmi karaan. diintoodii oo islaamka ah looma ogolo inay ku dhaqmaan. waxa waaye dowladda shiinaha waxay micnaa dadka qaarkoodii guryahoodii waxay u diraan, nimanka shiinaha u diraan, naagaha muslimiinta ayay kufsadaan. sharci daro iyo qaanuun daro ayay ku haastaan naagaha muslimiinta. dowladda ayaa sidaan sameeyay, dowladda shiinaha. iyo halhaas oo malaayiin oo nimanka muslimiinta oo Uyghurka ayaa xiran, waxay ku jiraan wax la dhaho concentration camp. madaxa ayaa laga titiraa, diinta islaamka la nacsiiyaa. waxaa la baraa dhaqanka shiinaha ayaa la baraa, shuucinimada iyo Buddhism iyo communist ayaa la baraa. lama ogolo diintoodii lay ku dhaqmaan. ilaahay qur-aanka wuxuu ku yiray wamaa naqamuu minhum ilaa an yu'minuu billaahi alcasiizi alxamiid. cadaab culeysaa lagu hayaa. waxaa waaye micnaa kulligoodii waa la raacaa. dowladda ayaa micnaa muraaqabaad ay ku haasaa, monitoring ay ku haasaa. meeshay aadaan waa la raacaa. wax kasta oo sameeyaan waxaa waaye dowladda shiinaha inay ku haasaa.
marka muslimiintan oo la dhaho Uyghurs waxay ku badan yihiin ay ku nool yihiin magaalada la dhaho Xinjiang oo Shiinaha ah. waxa waaye cadaab culus ayaa lagu hayaa cadaab culus ayaa lagu hayaa oo cadaabkan ka soo socda dhanka dowladda Shiinaha. marka lacagtaas oo dhan oo lagu cadaabayo oo muslimiintan oo macnaha ciidamaha Shiinaha oo magaalada dhan ku faafeen meel kasto jid kasto maxaa la dhahaa xaafad kasto masaajid kasto meelaha dhan suuqaha dhan ciidamaha Shiinaha ayaa jooga. ciidamaha Shiinaha ah oo ka socda oo dadka muslimiinta ku cadaabaya lacagtaas xaguu ka imaaday. lacagtaas waxaa bixiya dowladda Shiinaha ayaa bixiya iyo lacagtaas badana wuxuu ka imaadaa dhanka canshuurta ayuu ka imaadaa canshuurta dadka oo alaabta ka iibsadaan Shiinaha ayuu ka imaadaa. marka lacagtaas iyo alaabtaas oo Shiinaha ka soo iibsanaysid oo wadanka keenaysid Soomaaliya ama Kenya ama Uganda ama Dubai keenaysid Mareykanka keenaysid Yurubta keenaysid meesha joogtay South Africa keenaysid lacagtaas oo bixinaysid waxaa lagu cadaabayaa walaalaha muslimiinta ayaa lagu cadaabayaa. lacagtaas oo bixinaysid diinta Ilaahay ayaa mamnuuc laga dhigayaa magaaladan oo la dhaho Xinjiang. lacagtaas oo bixinaysid dumarka muslimiinta ayaa lagu kufsanayaa. lacagtaas oo bixinaysid dumarka muslimiinta ayaa laga mamnuucay inay isdaboolaan oo diintooda ku dhaqmaan. lacagtaas aad bixinaysid Shiinaha siinaysid masaajidaha ayaa laga xiray. nimanka muslimiinta ah ayaa xabsi lagu geliyay. lacagtaas aad bixinaysid diinta Islaamka ayaa lagu dagaaltamayaa. diinta Islaamka ayaa mamnuuc laga dhigayaa. muslimiinta ayaa lagu cadaabayaa. doonfaara la siinayaa khamri ayaa la siinayaa isqaabiyaa la leeyahay. lacagtaas aad bixinaysid oo Shiinaha aad siinaysid oo ku caawinaysid diinta ilaahay la dagaaltamooyin dadka. marka haddaa isleedahay ganacsi aad samaynayaa waxaa lagaa rabaa inaad samaysid ganacsi oo xalaal ah. waxaa lagaa rabaa inaad la imaadid ganacsi oo xalaal ah. laakiin ganacsigaaga hadduu xaaraan yahay lacagtaada meel xaaraan haddaa gelinaysid oo lacagtaas dadka muslimiinta walaalaha oo lagu cadaabayo iyo diinta Ilaahay lagu burburinayo oo diinta Ilaahay oo la dagaaltamayo oo diinta Ilaahay oo macnaha mamnuuc laga dhigayo lacagtaas iyo ganacsigaas aad wadid waxay noqonaysaa xaaraan ayay noqonaysaa. marka please fadlan muuqaalkan meesha ka joogtiin dunida faafiya share ku sameeya Facebook iyo Instagram Snapchat WhatsApp waxaad ku sameysaan share ku sameeya oo gaarsiiya dadka kale oo Soomaalida oo macnaha oo aqoonta ku yar oo Shiinaha ka ganacsadaan alaab ka keenaan kuwaas oo gaarsiiya Soomaalidaas oo macnaha Shiinaha waqti ka soo aadaan oo alaab ka keenaan oo ka ganacsadaan. waxaan leeyahay Ilaahay ka baqa leeyahay dowladda Shiinaha ha caawinina lacagta ha siinin maxaa yeelay muslimiinta ayay baabi'inaysaa iyo diinta Islaamka ayay baabi'inaysaa. waa midan waa arin Ilaahay ku weydii doono marka Ilaahay hadduu ku weydiiyo ku dhaho macnaha lacagtaas meesha gelisay muslimiinta loo ciqaabay diinta Ilaahay lagu baabi'iyay. Ilaahay markuu ku weydiiyo maxaa leedahay waa in aad jawaab diyaarisaa. marka hadda waa kana degniin ku yahay kan wuxuu ku yahay xasuusin ku yahay lacagta iyo ganacsiga meesha gelinaysid ogaaw meel xaraan ha gelinin meel Ilaahay ka soo horjeedo ha gelinin. ganacsi oo xalaal waa in aad la imaadaa. marka insha Allah taala iga raali noqdo hadda muuqaalkan igu dheereeyay laakiin waxaan doonayaa inaan xasuusiyo muhiimadda ganacsiga oo xalaasha anigoo Zakariya Muhammad Shooble. insha Allah taala khayr badan ayaan rajeynayaa iyo muuqaal kale. assalaamu calaykum
ورحمة الله وبركاته.